halkan aan ku suganahay waa beeraha tuulada Moyko. Moyko waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada magaalada Tanjawar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Waxaan saakay la kulmay beeraleyda ku dhaqan tuulada Moyko, waxayna iga warbixiyeen xaaladda tuulada walow ay ii sheegeen sanadihii ay soo dhaafeen in wax beera aysan tacbanin. waxaan wax ka weydiiyay xaaladda hadda noloshooda ama beerta sida ay ugu tacbadaan ama qaabka ay ku maareeyaan markii biyo la'aanta ay dhacdo. wallahi beeraha tuulada Moyko boqolkiiba 80 hadda maanta waa fiican. fasaladii horeey waxa batay fasahaadada badnaa marna waxa dhacay inas hubiga keenin, laakiin maanta aadaan fiicnaa boqolkiiba 80 beeraha aad ay u fiican. wallahi xaaladda awaarahaas markaas oo nasoo dhaafay dad iiduun waa saameeyay xoolaha iyo dadka saameyn xoog leh ku yeesheen, laakiin hadda fasalkan aadaan u fiicnaa alxamdulillah oo ilaahay waa lagu shukriyaa alxamdulillah aadaan u fiicnaay boqolkiiba 80 beeraha waa fiican. nolosha dadka aad ay u fiican. aniga aan kula hadlaay waxaan deganahay tuulada Moyko, waxaan ka mid ahay odayaasha tuulada Moyko ka mid ahay. beerta hadda aan ka hadloohay beertayga aan tacbado aad aan u fiicnaa. maanta noloshayna aad ay u fiican tahay, wixii dambe doon ma sheegi karo, laakiin maanta nolosha aad ay u fiican tahay. waxyaabaha aan horta u badannahay johor waxa degan beeraley iyo waxa degan iyo lo'ley. asa ahaatay waxaan u badannahay anaga beerahan u badannahay, dhulkaan wax ka soo saaranaa. bariisna waa la tacbaa, galeyna waa la tacbaa, laakiin maanta dalga aan maanta u badannahay anaga jecelnahay waxa waaye galeyda waay. maxaa keenaya sababta aan galeyda ku jeclaanay? waxaa keenaysa biyaha adkaysanaysa. bariiska wuxuu rabiyaa biyo badan oo rabiyaa, matoor oo rabiyaa, qarash badan oo rabiyaa. marka intaas ma awoodno galeyda 2 waraab 3 waraab iyo 2 yaamboo la yaambay bas intaas ay galeyda aaga fiican tahay. marka anaga waxaan noo roon galeyda noo fiican oo qarash yar. Harun waaye maadaama awaar maanta aan soo baxnay, laakiin maanta dadna hadda waa istawleysiin, dadna waa iskeeleen sida hadda aniga amal beertana ay baxnin waxa uu bixin waa istawleysiin wali. laakiin waxaan u baahanahay gargaarka xataa sidii hadda maanta inaga soo bixiyaan in hadda inta noo dhiman inoo dhameystiraan. laakiin hadda waa isxoo dad waa ladan yihiin, dad waa iska fiican, dadna wax ma haystaan. gargaarkii maanta inaga soo bixiyaan haddana waa sii baahan inaga sii bixiyaan, laakiin hadda aad iyo aad aan fiican oo broqaysana, laakiin dadna wax ma haystaan. si fiican awaarta maanta hadda aad waa laga soo qabanaya. sidii hore sidii waa gacmo qabnaa, awaarta waa laga soo kabtoohaya, sidii hore lama aha. wala inta hadda beeraha anaga waxaan ku raawin gurigaan ku raawin marka roob yar oo sida galeydi aan waraawin xataa xogo malbisa taawatay sawirku way yareysay sidii beerta loo rajeenay ma noqonin. wax kiin ciise sawirku way yareysay sidii beerta loo rajeenay ma noqonin. marka kulli anaga islaamay si hadda waa helnaa waa haasana kulli waxa kamid anaga maanta waxaan tacmay galey oo mar hore aan sidii aan reeyo waxaan tacmay bariis aan tacmay bariiskan waxa hadda la iskaga dhaaf euro bariiska hadda waxa la iskaga dhaaf bil aan la iskaga dhaafay. marka hadda galey maanta aan tacbnay galeydiina xogo yar maanta roob yar anaga qabatay. marka hadda kulli anaga waa iska cimaan, laakiin bariiska biyaha anaga qabatay. dadku waxaan u daawanahay anaga hadda maanta aan xogo iska ladanahay oo aan abaartin iska aaga baxnay. marka inta hadda noo dhiman inoo dhameystiran aan ugu daawanahay. deegaanada Hirshabelle qaasatan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa loogu bartay dalagyada bariiska, galeyda iyo digirta, walow sanadkii la soo dhaafay ay wax aysan tacbanin. waxayna sheegeen abaaraha ka jira dalka Soomaaliya in saameyn ballaaran ay ku yeelatay gobolka Shabeellaha Dhexe. waxay iga warbixiyeen in ay haatan ka soo kabsanayaan abaarihii ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya ee haddeer beeraha si wanaagsan ay ugu baxeen, qaarkoodna ay haddeer u soo dhalanayaan, qaarna ay haddeer gurteen. محمد ياسين مهدي محمد غلفة وrbaahinta Juba Shabeelle News tuulada Moyko gobolka Shabeellaha Dhexe.